magaciisa saddexan waa Sheekh Maxamed Sheekh Cumar balse loo garan u yahay Sheekh Dirir waana imaamka iyo khadiimka masjidka Nuur al-Huda ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Sheekh Dirir ayaa ku dhashay meesha loo yaqaano Dalbuuray halka iska gala deegaanka Soomaalida ee Kanoramada sanadu markii ahayd 1963 waxa macalinkiisii u horeeyay oo ahaa aabihiis oo bari Quraanka Kariimka ah sanadu markii 1996 waxa uu dhoofay dalka Pakistan isagoo ku biiray jaamacadda Al-Wifaaq Al-Islaamiyya halkaas uu ka qaatay shahaadada masterta shariicada islaamka iyo luqadda carabiga ah sanadu markii 1999 sheekhu waxa uu booqday dalka Masar waxaana uu kula kulmay culimada waaweyn ee dalka Masar gaar ahaan Sheekh Al-Azhar waxaana uu dooro cilmi ah ka qaatay jaamacadda caanka ah ee Al-Azhar Allah xifdiyo Sheekh Dirir ayaa heer sare ka gaaray barashada cilmiga diinta waxaana uu caan ku yahay tafsiirka Quraanka Kariimka oo si cajiib ah balaaqale u fasiro sheekhu waxa uu si qoto dheer u bartay tafsiirka Quraanka Kariimka naxwaha carabiga naxwaha tajwiidka iyo sidoo kale qiraa'ooyin kala duwan ee Quraanka lagu akhriyo Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa safrad dacwadeed ugu baxay dalal kala duwan oo caalamka ka kala tirsan sida wadamada Carabta Yurub iyo Ameerika Sheekh Dirir waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed kuwa lagu jecel yahay waqti badan ku bixiyay faafinta diinta Islaamka ah haddii aad ka heshay muuqaalkan iyo taariikhda si aan u soo badino culimo kale oo uga sameeyno la sii wada asxaabtaada mahadsanid